nabaday daawade noloshaada oo idil ilaahay ha nimceeyo neecawda aadmiga kuma sii nagaado qof nasiib la mooye noloshaada qormaysan naxariis ku dhamayso niyow leegta nasiya nagu booba falowda waxaan niyow shargareeya commentina shaqadaysan markaad nuxurka dhaafto halkaa hoose ku dhaaf waxa la dhihi karaa waa Jaanis ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ay ku xulan karaan jaamacadaha ay doonayaan inay ku biiraan Sakariye Ilyas Jakarta warbaahinta Star Burco cadceedda barqada kulaylaha milixda iyo bacadka midkoodna may xakamayn shaqadiisa waa ninkan aynu ka hadlaynee waa hayaan adduunyadu halka laga bilaabiyo halka loo asteeyaa ay tahay hayaayay horu socodka aadmiga hoos buu ka soo kacay hal midoo xusuus mudan halkan aan ka sheegay hafig iyo kulaylaha laguma hastaamee hore laga huleelaa jikaar su'aal baa lagu weydiinaya magaalada cuntada ugu macaan cuntooyinka cuntadan waa bariis iyo kalluunka bariis iyo kalluun armaa hadda waalaya ninkan warwaare kooniyo way hool lacagtii uu guuleystay aad bad mahadsantahay waxaa lacagade waa gaarigaas koodno haysku iloobin qosolkay dhagta soo raarici magaciisoo dhammaystirana waa Sakariye Ilyas Axmed waxaa ku dhashay caasimadda Naqdabiijo oo ka tirsan gobolka Togdheer roobabkii gugu waa ay yimaadeen waqtigii loo baahnaa inkasta oo dadka ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna uga faa'iideysan sida ugu wanaagsan Sakariye Ilyas Jakarta wararka STN saxafigan muddada dheer soo giraangirinayay waayihiisa saxaafadda isagoo ahaa midka loogu kalsooni badan yahay TV-ga STN oo xitaa dhulka guudkiisa iska daaya uga soo warrami jiray ceelasha Sakariye Ilyas Axmed Sakariye Jakarta ceelkan la magac baxay Aynaba ma guro mana gaagaxo waxa uu samata bixiyay boqolaal reer guuraaya oo deegaanka ku hareeraysana waqtiyo adag oo la soo maray Sakariye Jakarta wararka STN gudaha ceelka Aynaba halka aynu kaga soo gudubno waayihiisi bilowga saxaafadda Sakariye Jakarta oo aynu gudubno Sakariye Jakarta imika waa wariye madax bannaan barihiisa goonnida ah ee internetka waxa uu kula wadaagaa bulshada Soomaaliyeed barnaamijyada isaga goonnida kuwaasoo u badan su'aalo qosala oo weydiiyo dad qosolka iyo farxadda ehel u ah waxaan ka hadlayaa waa reer Burco sababa markaad u gursan weyday hadda iskaabulanimada wali aad u tahay raglaan baa jirta raglaan ballaaran baa jirta weydiinta iyo su'aalaha Sakariye Jakarta ayaa badanka u muuqda kuwa farxad geliya bulshada daawanaysa waana sababta ay dad badan ugu xidhmeen barihiisa kala goonnida ah kala duwan sida YouTube-ka iyo Facebook-ka TikTok-ka iyo meel kasta oo ka isticmaalo bartan halka ay dadka qaar u isticmaalaan inay iskaga biyaan ba stresska su'aalihiisan oo ah kuwa ay isticmaali karaan 5 jirka ilaa 8 jirka ayaa waxa ay toos u gaareen madaxtooyada Somaliland waxaana daawaday madaxweynaha Somaliland waxa jira qolay roob burca la marsa suuqa ahin mikrofon marka dadka meel hebel waa ku weydiinaya xareer reer burca waxaan weydiinayaa horta sababa markaad u gursan weyday hadda iskaabulanimada wali aad u tahay raglaan baa jirta raglaan ballaaran baa jirta inaan soo qaadano muuqaallo iyo sawirro markii uu soo bilaabay saxaafadda ama xilli hore kama dhigna inaanu dul istaagayno shakhsiyadiisa balse waxaanu tilmaamaynaa halka uu ka soo bilaabay hayaanka iyo geediga saxaafadda saxafigan rugcadaagan Sakariye Ilyas Axmed Sakariye Jakarta iyo halka uu maanta joogo daadiinta barnaamijkani waa anigoo ah wareergo iyo xasan lubnaani waxaan helay dheelitira ismaha noloshayda kaba qofii digma oo jecel qofaan dhaawacayga iyo dibitayda u sheega lagu gudbaayo saldhigiisu nabad tahay suuqyada camiran ee sakad magaalada saacadii adoontaba sakhiraya socodka ba'saaka ku yimid buu hodla saaxiib Ayuub Dax